imanaya isagana Cumar Cabdi Cali oo Biyakaab kooxda la yiraahdo ka socda bal Cumar soo dhawow waxaad ka warantaa ugu horeyn barnaamijkiina Biyakaab iyo waxa uu yahay dhibaatada xalinaysaan iyo waxa sababta oo dhibaatada inaad maxaa xal doontaan aad baan u dhawahay marka koowaad waxaan doonayaa salaamo dhageystayaasha iyo Cabdicasiisba Biyakaab horta waa barnaamij digital oo xalkiisu yahay in loo helo dadkii u baahnaa biyo nadiif ah oo la cabi karo talabaadna waxa weeyaan in loo helo in biyihii la helay la maareeyo anagoo adeegsanayna qalab teknolojiya casri ah oo markaa aan si faahfaahsan ku sii gali doono waad wadi kartaa marka horta biyaha ceelyaanta ayaan ka faa'iideysanaa oo markaa shabag lagu talagalay oo la yiraahdo fognet ayaan adeegsanaa waa technology oo markaa kala miiraya hawada iyo biyaha imka maanta soo aragtay dado badan baa jirtay saakaba xadda ay roob muuheen dadiheed amba ceeryaan kolba soo taqaanid marka wallahi waa fursad aad u ballaaran oo maanta waa badiyo kala maxaa jiray nawaraabinayso kala weeyaan marka dhibaatada aanu solve kareen waxa weeyaan inaan il cusub u sameeyno dadkii oo aan kaliya ku tiirsanaanin roobka biyaha kaliya biyaha roobkaan ku tiirsanaanin oo imika adduunka kale soo aragto daaman biyo isticmaalaan waxa isticmaalaan riigig bi isticmaalaan biyaha roobka kaliya kuma xirna anaga problemkanaas jira weeyaan roobkaas markuu istaago week ka bacdi waxa la oranayaa abaar baa jirta marka anagu waxaan sameeynaa xiliga ay dadadu jirtana waxa isticmaalnaa shabagaas oo la yiraahdo fognet oo markaa biyo dhalinaysa taasan kaga duwanaa teamska kale biyo ayaan dhalinaa instead of intan biyihii si isticmaal lahayn ta kale waxa weeyaan biyihii yaraayaan haysanay aan markaa maareeno badan waxaad arkaysaa beeraha iyo dadka xoolo dhaqatada iyadoo barkadu buuxaan xiliga guga ayaa markay gaadho xiliga jilaalka amba abaaraha oo loo week ka bacdi biyo ka dhamaanayo taas waa management la'aan amba maareen la'aan weeyaan oo ay sababayso aqoon la'aan iyo bila technology bal waxaad ka warantaa intii ay wadeen hawshan waxyaabaha ogaateen aad soo karayso dhibaatada xalinayseen salbay u tahay maxay ahaayeen wallahi waxa kamid ah in runtii qofka reer miyiga amba qofka meesha beer kule miyiga kule dhibaatada ugu weyn haysato waxa weeyaan xog la'aan ma oga xiliga uu abaartu dhamaanayso ma oga imika maanta barkadiisa biyo inta lag baa ku jira ma oga aduu leeyahay beero kale ma oga halkii hektar basashi inta biyo u baahan tahay ma oga inta neef ariya uu haysto inta biyo u baahan yahay maalinla oo markaa badana biyihiyo khasaaroon baa la arkaa oo waxaan leeyahay markaa runtii biyo waanu haysanaa waxa weeyaan maareyntii ayaa la wada ka dhima meesha waa gartay bal nidaamkiina Cumar oo sida uu shaqeeyo iyo dadka ugu tala gashay inay ka faa'iideystaan muxuu yahay waxaan ku bilaabay horta dadkaan ugu tala galnay waa 3 level kolba markaa levelkaanu hirgelin karno insha Allah iyo dadka nala collaborate kareen la shaqeynay ku xiran tahay ta koobaad aan ugu jecelnahay inaan ku bilowno waxa weeyaan wasaaradda oo markaa nidaamkan aanu si tuula ahaan aan ka bilowno ilaa 200 qof markaa shabagaasa markaa la kordhinaya oo ilaa 200 mitir lagu xiraya markaa shabagu waa simple aad buu jaban yahay saa lagu xiro waa easy waa cost effective na weeyaan markaa Allahumma salli ala Muhammad biyo badan oo soo saaray per square meter wuxuu soo saarayaa ilaa 50 liters per day 50 liter buu soo saaraya maalintii ay soo saar xilliga dheedada jirto scale-ka kala waxa weeyaan qofka beertiisa uu qofka marka beertas kale kaliyata uu soo saar karo biyo ku filan xoolihiisa beertiisa taasoo soo ka sii jaban oo waxa la yareenayaa un kolba size-ka shabaga tasaddexaad oo ah qofkii reer guuraaga ahaa raadinayay ceelkan biyihii aan u sameeyno mid portable oo maxaa la oran jiray 2 mitir gibigiisuba oo markaa sida inaad aragtay mooyaane guriga Soomaaliga oo kale aqal Soomaaliga oo kale loo la laabi karo oo markaa maxaa la oran jiray kolba uu qaadan karo meesha doonayo marka uu helayo biyo nadiif ah uu cabi karo uu ku survive karanayo ku noolaan karo ilaa intuu gaariyo ceelkii marka 3 level baanu wadnaa
technologiyadu ka kooban yahay haddaan kaa jawaab waxa weeyaan midda koowaad waxa weeyaan shabaga oo taasi ugu muhiimsan ah waa design simple oo laakiin biyo badan soo saaraysa talabaadna waxa weeyaan sensories ku xidhan dadkii barkadaha lahaayee beerta doonayay inay waraabiyaan sensorieskaasoo markaa u sheegaya dadka levelka uu marayo biyuhu markaana maxaa loo jiray haddana kusii xidhan systemkii aabkii ku xidhnaa aabkaasoo markaa loo soo gudbinayo si maalinla xilligan oo kale 7 biyaha siduu maareen lahaa maanta jadwal baa markaa loo soo diraya hadduu beer leeyahay beertii buu ku qoraya hadduu leeyahay xoole hadduu leeyahay inta kamiyaddu ku qoraya de markaa markuu diiwaangeliyo xogta anagoo isticmaalina markaa aabka ayaan usoo saaraynaa jadwal maalinla qofku haddaanu mobile haysan aabka waxaan ku bedelaynaa SMS amba USSD hadduu aanu haysan smartphone waa macnaha fariimaanu soo dirina markaa